ibn aadanku wuxuu soo maray xilliyo kala duwan waxaynu soo marnay xilligii dhagaxa waxaynu soo marnay xilligii beeraha waxaynu soo marnay xilligii warshadaha waxaynu maanta galnay xilligii informationka hadda waa laga sii baxaya oo waxaynu galaynaa xilligii creativityga iyo hal abuurka ibn aadanku wuxuu hadba qacantiisa ku haysto ayuunbaa uu ahaa teknolojiyad dhagax ha noqdo ama mulqaacad ha noqdo ama leydh ha noqdo ama dhooxul dhagax ha noqdo laakiinse isbedel weyn baa ka dhac waxa isbedelay sidii aynu noolayn waxa isbedelay sidii aynu wax u iibsan jirnay sidoo kale waxa isbedelay sidii aynu lacagta u samayn jirnay maanta xilligan aynu noolnahay waa xilli cadiima oo qof kasta oo taariikhda soo maray uu ku riyoon jiray sax waxyaabo badan oo qaldan way jiraan sax problem way jiraan sax waxyaabo badan oo ka hor istaagay way jiraan laakiinse maanta xilligan aynu noolnahay haddii aad fahmi weydo adduunkan sidoo shaqeynayo challenge bay ku noqon doontaa muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa haddii aad doonaysid inaad online income iyo dakhli aad ka samaysid haddii aad doonaysid inaad noloshaada gacanta ku qabsatid haddaad doonaysid inaad fursadaha maanta adduunka yaalaad ka faa'iidaysatid insha allah muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 7 tallaabo oo haddii aad 7 tallaabo raacdid waxaan kuu ballan qaadayaa inaad natiijo heli doontid istabka koobaad eed u baahan tahay kow waa inaad ogaatid waxaanad samaynin maanta markaad online ka timaadid waxyaabo aad u badan baa ayaa ku soo galaya dadka qaar baa koranaya crypto bilow dadka qaar baa koranaya youtube bilow dadka qaar baa koranaya blog bilow waxyaabo badan kala duwan baa ayaa lagu sheegaya oo qaabkaas which is good allah mustacaan oo meelo badan oo kala duwan oo wax looga sameynaya way jirtaa laakiin istabkan haddii aad raacdid waa hubaal siday natiijo u heleen allah mustacaan inaad u helisid marka ugu horeysa waxaan isweydiinaynaa businesska markaad rabtid inaad bilowdid ama online inaad xirfad inaad income ka samaysid markaad rabtid inaad bilowdid maxaa u baahan tahay kow marka ugu horeysa waa inaad ogaatid businesskan ama online businesskan aad bilaabaysid muxuu kaaga baahan yahay haddii aad maanta tirahdid Amazon FBA baan bilaabaya ama alaab kale soo iibsanaya oo alaabtaaban online-ka ku iibinaya waxaad ogaataa 100 boorso kale lagu soo diray ama 100 kabood oo kale lagu soo diray si aad faa'iido u samaysid malaha midka ugu yarba $10 iyo waxaad ka samaynaysaa and it take you waxay kugu qaadanaysaa waqti aad u dheer laakiinse waxaad u baahan tahay markaad business la qiimeynayo online-ka la qiimeynayo cost-ka lacagta kaaga baxaysa in inteleg buu adag yahay hadday tahay waxaas xirfad la barnay xirfadaas in inteleg bay kugu qaadanaysaa waqti inteleg bay kugu qaadanaysaa sidoo kale allah musta'an lacag inteleg baa maanta imika crypto kala rabtaa inaad bilowdid crypto $100 ku bilaabi kartaa wax kale oo ku bilaabi karaysaa way kici kartaa way hoos bay u dhici kartaa laakiin ma crypto ma xirfad la bartaa crypto xirfad maaha xirfadaad baranaysid oo intaad baratid aad ku shaqo tagaysid ama meel aad kaga shaqeynaysid crypto waa investment waxaad investment ku sameynaysid weeyaan sidoo kale allah musta'an markaad waxyaabo kale oo kala duwan sameynaysid waa inaad isweydiisaa businesskan in inteleg buu igu qaadanayaa inaan businesskan dhiso arrinka koobaad waxaanu eegaynaa bal online businessyada suuqa ka jira ayaanu eegaynaa mid walba intuu kugu qaadanayo arrinka ugu horeeya tradingka tradingka haddaad eegtid kow wuxuu u baahan yahay allah musta'an waa aqoontaas waqti bay qaadanaysaa sax ma qaldana oo dadyo badan baa jiro income iyo dakhli ka sameeya tradingka sida crypto kale ama ka sameeya tradingka forex lacag ka sameeya ayaa jira laakiin waqtiga kugu qaadanaysa waa waqti aad u badan midda kale waxay kaaga baahanaysaa investment inaad lacag haysatid forex ko kale haddaad ku shaqeynaysid inaad akoon shirkadka waaweyn loogu shaqeeyo akoon aad ka heshid bay noqonaysaa taasna waqti badan bay kugu qaadanaysaa inaad xirfadda master garaysid waa tan labaad oo crypto inaad allah musta'an iyadna ku trade garaysid waa same arrinka labaad eed u baahan tahay allah musta'an si aad u bilowdid inaad baratid xirfadaha sida codingka ama content creationka contentka inaad create garisid ama youtuber noqotid ama youtube-ka banigaaga ugu horeysa aad ka samaysid it will take for you long waxay kugu qaadanaysaa waqti aad u badan waxay kugu qaadanaysaa shaqo waxay kugu qaadanaysaa soo jeed inaad qortid oo duubtid oo edit garaysid maybe hal video kaliya waxa resistant kaaga imanaya ay jirto youtube-ka 50 milyan oo waxa jira creators 50 milyan inta 10,000 qof gaadhay wax dhowr milyan gaadhay weyn inta 100,000 qof gaadhayna milyan ba ma gaadhayeen oo wax long term maaha laakiin waxa intaad maanta bilowdid aad income iyo dakhli aad kaga samayn kartid laakiin waxaad u baahan tahay xirfad ku sarifmaysa waxaad u baahan tahay xirfadaad income iyo dakhli aad ka samayn kartid waxa jirta 5 pocket wax la yiraahdo pocketka koobaad waxa weeyaan inaad baratid xirfad pocketka labaad xirfadaas aad baranaysid ayaa waxay ku baraysaa dadkii wax ku fududeydin lahaa dadkii aad la shaqeyn lahayd taasba waxa ku baraysaa waxaad capable aad u tahay marka taas maxay ku sii baraysaa waxaad sii qabanaysaa networkaaga sii kordhay and saasba tallaabo ku gaadhaysaa laakiinse maanta adigoo bottomka jooga ama adigoo ku cusub dunida online-ka inaad tirahdid waxaa noqonaya crypto investor waxaa noqonaya wax kalan sameynaya challenge bay kugu noqonaysaa haddaba sidee baad online-ka dakhli ugu samayn karaysaa su-aasha meeshani aan imanaynahay waxa kan sidee baad online-ka dakhli aad ugu samaynaysaa online-ka markaad timaadid online-ka waa badweyn waa badan yahay wax badan baa ka socda wax badan baa ka jira fursado badan baa ka jira maalin walba trend baa jira waxaa jira creators waxaa jira short form creators waxaa jira dad tiktok wax ka sameeya waxaa jira dad facebook wax ka sameeya waxaa jira dad meelo kala duwan wax ka sameeya markaas xageed ka galaysaa maxaa ugu muhiimsan maxay ay tahay waa inaad isweydiisaa xageen rabaa inaan ka galo adigoo interestigaaga ku xidhan tahay dadka qaarkood allah musta'an waxay ku fiican yihiin creationka iyo inay wax soo saaraan dadka qaarkood waxay ku fiican yihiin inay wax kala sameeyaan dadka qaarkood waxay ku fiican yihiin adigu waa inaad isweydiisaa marka niche inaad dooratid nichekaas ama creator buu noqon karaa si aad haddaba niche u dooratid waxaan kugula talin lahaa inaad digital skills baratid marka ugu horeysa xirfadu waa waxaad leedahay xirfadu waa wax cidi kaa qaadan kareen xirfadu waa waxaad wax kasta u isticmaali kartid xirfadaas inaad baratid marka hore xirfadaas maxay noqon kartaa digital marketing hadda
hadda the biggest digital marketing baan leenahay ee Soomaali leedahay ee ku taala East Africa iyo worldwide. I don't know ma garanayo Allah musta'an hadday jirto. Waxaan leenahay office baan leenahay hadda digital marketing inaad muuqaalkii daawateen baan u malaynayaa, and we invest thousands tobanaan kun oo dollar baan Allah musta'an ku invest gareynaa si aan business kan oo kale aan u dhisno. Uma baahnid markaa maanta inaad tobanaan kun oo dollar aad ku invest gareysid business kan oo kale. Uma baahnid inaad software samaysid, uma baahnid inaad applications samaysid. Waayo waxaan ka hadlayaa waa aragnimo, waa software waan sameeyay, applications waan sameeyay, e-learning platform waan sameeyay, waxaasoo dhan Allah musta'an waan sameeyay. marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad hal xirfad qaadid oo halkaa xirfada the best of the best aad ku noqotid. maalin dhow waxaan soo boos gareynayay xirfad waxaan rabnaa qof digital marketing ugula shaqeeyo. xirfadaas waxay noqon kartaa SEO, waxay noqon kartaa Google Ads, waxay noqon kartaa Facebook Ads, waxay noqon kartaa Allah musta'an copywriting, waxay noqon kartaa web design, waxay noqon kartaa video editing, waxay noqon kartaa graphic design. waxaasoo dhan waa maanta xirfado suuqa ka bannaan oo haddii aad baratid income iyo dakhli aad ka samayn karaysid. xirfadahaas waxa ugu muhiimsan haddaba meesha aad ka baranaysid iyo cid aad ka baranaysid. sidaa daraadeed waxaan kuu diyaarnay faac cusub university. waxaan soo ururnay the top courseska Allah musta'an qofku u baahan yahay, hadday noqoto graphic design, hadday noqoto web design, hadday noqoto content creation, hadday noqoto social media marketing, hadday noqoto mobile content creation. waxaan hire gareynaa qofkii xirfadda leh ee xirfadda ku fiican. so many ways baa jirta Allah musta'an aan u shaqaaleysiino. hadda waxa jirta u baahanay social media marketing, SEO haddaad ku fiican tahay oo Nairobi joogtid oo in physical iman karaysid Allah musta'an Google Adska iyo copywriting ka loo sameeyo waan ku hire gareynaa oo xirfadaas si fiican u garaysid. marka haddii aad xirfadaha baratid baahi weyn baa suuqa ka jirta. maanta businessyo badan baa jira oo u baahan branding, oo u baahan web design, oo u baahan content in loo create gareeyo, oo u baahan in social media loo sameeyo. waxaa jirta dhalinyaro ila shaqeysa oo kumanaan kun oo dollar ka sameeya bil kasta online-ka iyagoo as a freelancer ku shaqeynaya. marka waxa ugu horeeya u baahan tahay si aad online-ka income iyo dakhli aad uga samaysid waxa weeyaan inaad xirfad baratid, xirfadaas data aad iibisid. marka ugu horeysa waa learn the skill and then sell the skill. marka hore xirfadaad baranaysaa and then xirfadaadii baad iibinaysaa, and then marka inta dhamaysid Allah musta'an xagga dambe ugu gudbi doonaa ayaad teach kareynaysaa oo dadka aad baraysaa. marka dooratid xirfadda aad doonaysid, ama graphic design noqoto, ama web design noqoto, ama video editing ha noqoto, midkay doonto ha noqotay, markaad baratid waxa kuu fududaanaysa Allah musta'an inaad xirfadda ku shaqo tagtid. xirfadda markaad baratid waa inaad ku shaqo tagtid. saddexaad inaad practice gareysid. practice ilaa second nature kaaga noqonayso. dhawaan insha Allah diilay waxaan furi doonaa program ardaydeeda kamida ama dadka ardaydeeda kamida ee xirfadahan bartay inaan siin doono internship inaan siin doono oo inagula shaqeyn doonaan si ay xirfadoogan u practice gareeyaan ama xirfadoogan ay sare ugu sii qaadaan. marka haddii aad xirfadaada ku fiican tahay, haddii aad xirfadaada ku wanaagsan tahay, isku day inaad Allah musta'an marka hore xirfad baratay. haddana xirfadda aad rabti waa inaad practice gareysaa, xirfadda ku celcelisaa ilaa second nature kaaga noqonayso. waa xirfaddii waqti bay qaadanaysaa. stepka afraad waxa weeyaan inaad xirfadda ku shaqeysid. xirfaddii degdeg lacag uguma helaysid oo markiiba degdeg lacag uguma sameynaysid, laakiin waxaad u baahan tahay inaad dal la shaqeysid, inaad portfolio-haaga dhistid, inaad portfolio-haaga sare u qaatid. u tag businessyada waxaad ku tiraahdaa bisha ugu horeysa saran Allah musta'an waxaan sare u qaadayaa adiskaaga, wax lacagna kaaga marabo. markaad natiijo heshid unbaad lacag siinaysaa. marka isku day inaad for free xirfadaada ku shaqeysid si aad portfolio u heshid, si aad testimony u heshid, si dadku ay kuu siiyaan wixii dadka kale aad u bandhigi lahayd. and then taas markaad ku fiicnaatid waxaad u baahan tahay inaad xirfadaadii freelancer ku noqotid, inaad xirfadaadii dadka ugu shaqeysid. dad baa jira maanta dhalinyaro oo boqolaal iyo $1,000 ka sameeya xirfadahooga. markaad service qabanaysid ama xirfadaha kale aad qabanaysid challenge bay kugu noqonaysaa Allah musta'an. waa location freedom ma heli kartid, time freedom ma heli kartid, sidoo kale Allah musta'an financial challenge bay kugu noqonaysaa. marka xirfadahan waa xirfado ku siinaya inaad online ku shaqeyn kartid, waa xirfado ku siinaya inaad adduunka meel kasta ka joogtid. aniga haddii imika waxaan hayo dhan layga wada qaado oo meel aan weligii arag la geeyo oo kaliya computer kaliya ta la siiyo, lacag waan sameynaya hubaal. waa xirfadahan aan yeeshay waa xirfado aan meel ku mari karayo, waa xirfadahan wax ku sameyn karay. marka xirfadaha haddii aad yeelatid waxba yaraatay ku istaajin karayahay ma jirto. stepka kale ee isna ku xiga waxa weeyaan inaad markaa creator samaysid, ood muuqaal samaysid, ood content ka create garaysid. contentkaas Allah musta'an dadka la wadaagtid. xirfadaadii baad baratay, xirfadaadii baad si for free dadka kula wadaagaysaa, dan dadkii markaas bay ku soo raacayaan. hadda maanta tahay content baan create gareynayaa adigoo maanta bottomkii jooga, adigoo maanta meeshii ugu hooseeyay jooga, adigoona Allah musta'an maanta wax badan soo sameyn, challenge bay kugu noqonaysaa. marka waxaad u baahan tahay markaad xirfadii baratid, markaad xirfadii ku shaqeysid, markaad xirfadii practice garaysid, markaad xirfadii natiijo ka keentid, waxaad Allah musta'an marka dambe sameynaysaa muuqaalo iyo content. and then taas baa kuu keenaysa dad badan ama macaamiil kuu noqda ama dad badan oo aad hadhow tolo information productgaaga ka iibsid. marka stabiskaas haddii aad martid waxba yaraatay ku istaajinay ma jirto. haddii aad doonaysid inaad xirfadahan baratid, haddii aad doonaysid inaad ka baratid who is who, haddii aad doonaysid inaad ka baratid dadkii xirfadahan master gareeyay, dadkii lacag ka sameeyay, dadkii ku shaqeeyay, faac cusub university baan kuu sameynay. faac cusub university waxaad ku baran doontaa dropshipping, designing iyo graphic design iyo web design, video editing iyo Allah musta'an Adobe iyo CapCut. sidoo kale Allah musta'an waxa ka maqnayn social media marketing, hadday noqoto affiliate marketing. sidee baan anigu $10,000 uga sameeyay affiliate marketing, sidee baan Allah musta'an Facebook ads loo sameeyaa, sidee baa SEO loo sameeyaa. waxaas oo dhan baad ku baran doontaa insha Allah haddii la
yiraahdo hadii aad doonaysid inaad kamid noqotid insha Allah hadii la yiraahdo dhowrka cishay soo socda waxaan qaadan doonaa tiro yar oo dada oo master gareyno oo siino the best value insha Allah hadii la yiraahdo si aad isku diiwaan gelisid linkiga hoosta yaala iska diiwaan gali insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.